youtuberka ugu caansan Soomaalida ma taqaanin markaan leeyahay caansan waxaan uga jeedaa youtuberska marka qiimeynayaan waxa ku qiimeeyaan subscribers kuwa wax soo daaya soo idin ma yiraahdaan subscribe gare xidigta taabo share gare like ta saar ba ku yiraahdaa muxuu intaa ku leeyahay intan waxa kaga xidhan dhaqaale kow cidda ugu subscriber badan ee Soomaaliyeed ee YouTube ku jira kubadda cagta ka warrama ka kubadda cagta ka warrama ee Soomaaliyeed dad 1 milyan ka badan ba subscriber vlog marka ku dhufato vlog waa qaab loo eego YouTube ka waxa ugu badan ee la daawado therefore marka ku dhufatay eegto war bar Soomaalida maxaa u badan ee la daawadaan ku dhuftay waxa soo baxday kubadda cagta inay u badan tahay YouTuberka ugu subscriber badan leh YouTuberka ku xiga ma taqaana wuxuu ka shaqeeyo alghina heeso soo bandhiga walabada YouTuber ee Soomaali ugu tiro badan ee subscriber laga yahay midna kubaddu ka warrama midna heeso soo bandhiga من مليون مشترك باكو حين كورا وقتي dadka Soomaaliyeed ee milyanada gaadhaya subscriber ka wax kasto ninka soo hadla u soo dhacaya milyan qof waqtigooda hadaad isticmaasho ka war 1 million people hadaad maalin kasta saacad ka isticmaasho waa 1 milyan oo saacadood umada ka khasaaray 1 milyan oo saacadood 1 milyan oo saacadood product ka la soo saari lahayd masuuyi yani wadanadana joogtaan shaqada saacada lagu xisaabtamo Soomaa shaqaale 1 milyan oo saacadood shaqeeya maxay soo saari karaan wax badan may soo saari karaan Soomaa bal qiyaas ninka maalin kasta 1 milyan oo saac Soomaalida ka lumiya ma waxbuu taray mise waa khasaare adduunyo aakhira buu gaarsiiyay waxa kamida baan leenahay bay yiraahdaan ishaa'atu al-faahisha wa dhabh al-hayaa bay yiraahdaan xishoodka la gowraco iyo xumaha la faafiyo ilaahay quraanka wuxuu ku yiri إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا قوة جعل إن الزنا يحرمه قفافان ذاتك إيمانك لغهلي لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وآيات قرآن في سورة النور جدا وحيلي ينبغي إلهي عذاب فلول أي أدونك يا آخر بليين والله يعلم وأنتم لا تعلمون بإلهي إلهي بانا وحق إذن وحمه إذن إن أنت إسقاوسا ما يصلوا ليسا حيفا فينيسا ما إنك يتقاون يسلول يا محفا فينيا هو فاحش فافينيا وحسوس قال يا آيات القرآن كا إلهي ليكوا فاحشة فافينيا إدتك مؤمنين تقول فافينيا عذاب كلول بي آخرية دون بلي وحكى لكم إذا السوشيال ميديا نوح فافيو النميمة وإشعال الحروب بين هذا اسكدر يدق الأغياشة تقال هذا عصبة الصومالية مركا يدعين YouTuberska ugu badan ee la daawado waayo kuwa dagaalka warraba anagoo reer hebel maanta dushaan ka korn waxa la yeeriyaday 10 kiiloomitir baa laga saaray kale kaasa ugu badan kala daawanayo waa kuwa ka shaqeynaya qabaa'ilka iyo isku dirkooda reer hebel ma waxba ay ahaan jireen waligood dagaal laga qaadi jiray xagee ku noolaan jireen ayuu taagay isku dirkana nabigu wuxuu yiri la yadkhulul jannata an-namam la yadkhulul jannata tat nabigu wuxuu yiri kuwa dadka isku dira jannadaba ma galaan kuwa dadka isku dira jannadaba ma galaan intuu dadka isku diro oo dambi oogo ilaahay yuhuud waxyaabo quraanku ku ceebeeyay waxa kamida kullama awqadu naaran lil harb atfaaha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin ilaahay wuxuu markasta ay dabka shidaan oo dadka dagaal galiyaan ba ilaahay baa damiya dhulka inay fasahaadiyaan bay u socdaan ilaahayna ma jecla kuwa wax fasahaadiya ka warna shaqadii qolada lagu ceebeeyay hadaad adigu hayso adiga shaqadaada haday tahay inaad dadka isku dirto waxa ka sii daran adigu wuxuu ku leeyahay sheerde meel fog gaarsiiya waa aad ila dambaaba anigu waan dambaabayaaye tolkayow aad ila dambaaba ku leeyahay dad badan adiguna gaarsiin wada dambaabnay markaas waliba isagu dambiga lacag buu ka helay xayisiiska yara ka soo dhaxbaxa iyagu viewers buu ninkan raadinaya xataa inuu reerka baa aaminsanay ma laga yaabo uu digdiglay laakiin muxuu raadinayaa sidii loo daawan lahaa wax kasta oo lagu daawan karo viewer uu ka soo dhaxbixi karo isagu uu sheegaya waxyaabo lagu badiyay waxa kamid ah al-ghiba wal-buhtan wal-iftira been abuur dadun been la soo taaganoo le heblaaya waxaan sameeyay hebel baa waxaan sameeyay dawladda kan sameeyay kuwan baa waxaan sameeyay been isaga soo sameeyay Yurub dhex fadhiya
markaasuu maalin walba waxa waddanka ka dhacay kaaga warramayaa markaasuu ka warramayaa everything kullu shay wuxuu dhamina wuxuu u badan yahay iftiraa been abuur uu sameeyey ama dhacdo meel ka dhacdayo isagoo aan hubin siduu doono uu sheegay amaba buhtaan uu ku talagalay inuu qofka kan shaarkiisa iska geeyo can qasdin buu ugu talagalay ninkaa siyaasiga ah haddaanan kaa dhooqaynin buu leeyahy bal wakaase reerku dib ha kuu doon markaasuu wax akhrinayaa xantaa la mid ah xantu waa maxay waa dikruka akh waa walaalka inaad ku sheegto wuxuu nacayo xataa hadduu yahay ma jecla in laga sheego asalku wuxuu ahaa satru cawrati lmuslimiin dadka muslimiinta ceebahooda inaad asturto nabigu wuxuu yihi qofka qof muslima ceebtiisa astura ilaahayna kurba min kurbaati yowma alqiyaama buu ka faydaa qofka qof muslima ceebtiisa astura ilaahayna isagu tiisa astura qofka dadka ceebahooda dabagala ilaahay isagana wuu fadeexeedayaa imsa aragteen mid dadka ka hadli jiruuna maalintii dambe isaga ku rogeen yani haddaad dadka ceebtoodun ka shaqayso adigana ilaahay subxaanahu watacaala ceebtaadu soo bandhigaya sida awgeed ama madax ha noqdaan ama mijo ha noqdaan dadka xantan lagu wado in laga daayo weeyaan been abuurkan lagu wado in laga daayo weeyaan hadduu isagu ka dayn waayey adigu ha u daawanin ama ha u faafinin like-na ha u saarin sheerna ha u samaynin subscribe-na ha ka noqonin adigu inta waayo wuxuu ku leeyahay anigu waan dambaabayaa lacag baan ku helayaa adna ila dambow lacag la-aanna ku dambow adigu isagu xaaraantaasaa buu rabaa inuu urursado laakiin adigu xataa iyadoo xaaraantuna ku soo gelay baad maxay ayaa dambaabaysaa dhibta uu bahalkani leeyahay waxaa ka mid ah ma garanaysid man tatasilu bih qofkan aad la xidhiidhaysaa kuu yahay qofka wax baraya waa kuwe waxaa ka odhanaya nin hebel la yidhaha maqaalaado fiican soo qoro waxaan ka warrama haddaad arki lahayd kamaa taloteen qofkaa iyo siduu u nooliyiye wuxuu yahay inta badan qolyahan yurub iyo meelahan jooga nin noloshaba ka dhacay oo guriska xidhan oo cayn qaato oo liita ayaa intaa wax qoraya kuwii soomaaliya jooga markaas leeyihin mid jarmalka joogo maqaalo fiican qora muxuu joogaa jarmalka waa noloshaba uu ka saaqaday qofkan maad garanaysid su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan markaa man tatasilu bihi qofkan wax kuu sheegaya muxuu yihi waa kuma macallinkaagu waa qof haddaad taqaano aanad waxbaba ka dhegaysateen noocuu iyo qualitigiisa iyo siduu u noolyahay haddaad taqaano bahalkani wuxuu keenay bay yidhaahdaan waxay isweydiiyaan social mediaha waxtarkiisa iyo waxyeeladiisa iyamaa badan maanta waxaa laisku raacsiisan yahay waxyeelo aada u tiro badanna inuu leeyahay waxtarna inuu leeyahay lagama muransana inuu waxtar leeyahay laakiin inagu ma waxtar baynu u isticmaalnaa mise waxaynu u isticmaalnaa maxay waxyeelo waan idin weydiinayaa kuma social media faa'iido ku qaba yaa isla waxbuu kuu kordhiya qosolbuu kuu kordhiya soo maha inaad markaa daawanayso yaro qososho uun laakiin wax macnalo aad sileeday maanta waxaad ka faa'iiday social media ma garanaysaa wakti se intee leeg baad ku bixisay wax macnala se ma ka heshay waxay yidhahdaan bahalkan markay mushkilaadkiisa ka warramayaan mashaakilkiisa waxaa ka mida bay dhahay atafaasul socializationkii buu baabi'iyey dadku inuu dad mujtamaca noqdo isku xidhmo buu tirtiray bay yidhaahdaan bale waxay yidhahdaan dadkii guriga qura ku wada noolaa ayuu kala kaxeeyey aabbihii iyo hooyadii iyo carruurtii guriga wada joogay qof waliba caalam kaleu ku xidhan yahay iyagu isma oga mid waliba kiisu wadwadaa marka waxay leeyihiin social muu samayne tafaasul buu sameeyey bay yidhahdeen bulshadii buu kala durkiyey qof aanad garanayn ama waxba ku ahayn ama waxba ka dhaxaynin ama meel kaa durugsan joogana waxaad rabtaa inaad habeen iyo maalin ku xidhnaato kii aad sariirta kugu xiga jiifay ee iska soo hortoosaysayna nolosha wada lahaydeenna wuu ka maqayay marka waxay yidhahdaan aloneness buu dadka badan xanuunkan tawaxudka la yidhahdo kale soo maaragtaan qof raba inuu keli noolaado waayo adiga iyo mobilkaagunbaa wada nool dadka lama sheekaysatid waxba kagama xidhnid waaba adiga iyo mobilkaagaa wada nool calam iftiraadiyaad ku jirta waxay yidhahdaan haddana adigoo keliyoobay bay yidhaahdaan ayuu haddana dhib kala keenay oo ah khusuusiyaadkaagii oo dhanna wuu baabi'iyey wax kuu qarsoonina ma jiraan dadka maad arag selfie meeshuu istaagaba sawir buu iska qaadaya
iminkana waxbaan cunayaa haddana suuqaan marayaa hadhowna tareen baan saaray yacni qofku khusuusiyaad male bay yidhaahdaan wixii uu qofku gaarka u lahaa ee noloshiisa gaarka ahaa cid waliba nolosheedii bay ka sheekaynaysaa qof waliba wuxuu qabto ka sheekay ilaa wax kale uu dhigama hayo saa daraaddeed wuxuu burburiyey bay leeyihiin qofka wax allaaliya wixii uu ahaa gaarkiisa ee qofka bini aadamka u asturnaan jiray wuxuu baabiyey bay yidhahdaan caadaadka ay ummaddu lahaayeen qofku dadka markuu la joogo u xishoonaya wax xun ma odhan karaysid iyadoo waayo waa lagula yaabaya waad ceeboobaysaa laakiin qol cidlaa markaad ku xidho miyaad ceeboobaysaa waxaad doontaa baad kaga hadlaysaa haddaan iimaan iyo wax kaloo ku celinaya aanay jirin awal social pressure bulshada cadaadiskeedaad ka baqaysay oo dadka markaa isu timaadaan waad xishoonaysay waxaad ka baqaysay qiimahaaga dadnimeed dadka dhexdiisa inuu dhinto waayo qofku value buu leeyahy wuxuu ilaashadaa buu leeyahy qiimuu samaynaya qiimaha waad ilaashanaysay markaad dadka la joogtay laakiin inta badan le markay gaar u baxaan ee ay qol cidlaa isku xidhaan waxa luma bay yidhaahdaan caadaadkii ummaddu ay lahayd iyo taqaaliiddeedii oo dhan waa laga kacaa marka mid isqaawiya sida carruurta boodbooda mid waxaan macno lahayn sameeya mid kijadiisa birisku ku samaysanaya soo sawira qofba waxbuu iska sawiraa waxay yidhaahdeen wuxuu kaloo noqday wasaa'il lilmuraaqaba waltajasusi waltajniid bay yidhaahdaan oo wasiilooyinka ugu waaweyn ee la ysku basaaso maanta markaad kan sidato waa la ogayay waagu markuu bariyey ilaa yaa markaad seexatay meel kastoo aad istaagtay adaa rikoord gareeyey baalkan maxaa ku jira waa inaad nid ku xidhantaa soo maaha nidka maxaa kugu xidhaya BTS soo maaha yacni shirkaddii aad bahalka ka kiraysatay bahalay meelahan taagtaagan bay leedahay markaad kan dhaaftaba kii kaleed u tallaabaysaa aad ku xidhmaysaa kan markaad ka tagaa waxaani waxay guryahan bay wada saarsaanay inaad dhinacyo maraysaa dabeetana markaad guri dhaaftaba ka kale aad ku xidhmaysaa macnaheedu waxa weeyaan every minute halkaad taagnayd waa la ogyahay idan ayda ku basaasin every minute waagu markuu bariyay saaka mar haddaad kan sidatay waagu markuu bariyay ilaa iyo intaad ka seexanaysay waa la soo saari karaa daqiiqad kasta halkaad joogtay waxa labaad uu leeyahay bay yidhaahdaan waxa la garan karaa sida aad u nooshay waayo halkan bay ku jirtaa wax kastoo aad daawatay wax kastoo aad akhriday berigii hore mukhaabaraadka markay wax baadhayaan dadka waxaa la tegi jiray librariyada iyo waxaa la ogaan jiray muxuu buwaag ama ahday muxuu ka sameeyey waxaa la yidhahdaa tani shuuciyadu aad u akhriya waa kuwa bidixda ee dowladdu waa more radical buu noqonayaa bukebel iyo bukebel hadduu akhriyay wuu fogaaday ha la ilaaliyo dowladaha reer galbeed saas isticmaali jireen kuwa shuuciga ahi waxay leeyihiin muxuu akhriyey bukebel iyo bukebel aad buu kabitaliska dhankiisa u sii socdaa baa la leeyahay waa lagu muraaqabaynaya awal librariga meelahaasaa la tegtegi jiray hadda looma baahnay waxaa la eegayaa maanta imise website baad gashay websiteyada aad ku xidhan tahay maxay ka hadlaan maxay ka warramaan siday u fakeraan maxay soo bandhigaan waayo waxaasoo dhan waxaa daraaseeya brograamka meeshan ku jira niman kale waxay daraaseeyaan maanta maxaad daawatay hadhow markaad tidhaahdo fur wixii aad daawatay konton u eg baa lagu soo dhigayaa yaa u sheegay waxa uu sheegay wixii aad daawatay logarithmkay baadheen wixii aad daawatay dan markastoo aad haddaad iminka kubad daawato marka labaad aad furto konton kubadood oo kale nooc ma ka soo baxaya waayo waxaa lagu leeyahay kuwan iyo kan baad daawatay haddaad dawo baadhay marka labaad iclaanaadka dawaduma kuu soo baxaya dawo hebel baa fiican dawo haddaad cunno baadhay marka labaad aad furto waxaa kuu soo baxaya cunooyin idan wax kastoo aad samaysay wuxuu doonaba ha noqdo waa recording marka waxay yidhaahdaan waa wasaa'il lilmuraaqaba waltajasus waa wasiilo lagu ogaado qofkan lagu ilaaliyo wax kale